qofkii hadal xun iyo uf kugu yiraahda walla kaas oo dhamaatay qofkii waxaan doqdaa iga dhaaf uf kugu yiraahda. Assalamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. kulanti waxaan wanaagsan meel kastoo aad joogtaan isoo walbo maqalka iyo muuqaalkeenaba idiin soo gaarayo. Aniga Kamaal Saale Axmed waxaan leeyahay ku soo dhawaada hadda la cusub tahay subscribe saar. Maanta waxay wada barnaamij la magac baxay maansada maanta waxay idin soo gudbin doonaa insha Allah tixyar oo aan ka tirinay hooyo. Barnaamijka maansada maanta waxaa lagu soo qaadan doonaa heesaha aad wada dhegeysataan ka dhalinyaro ahaan. Heesooyin badan ayaa jiro oo wada dhegeysataan. Heesooyinkaas ayaa mirahooda inta keeni doonaa waana kula fikri doonaa insha Allah. Iminka aynu bilaabno mirihii aan tirinay. Maanta aniga ayaa miro idin tirinaya. Halka barnaamijka maansada maanta qof kasta oo badan uu ku soo diri karo miraha uu ka taliyay waxa ka qabsaday adduunka iyo waxyaabaha uu ku arkay si aan ula wadaagno asxaabteena. Maanta aniga waxaan ka tirin doonaa miraha hooyo. Hooyo ayaan ka tirin doonaa miraha. Anigoo ah Kamaal Saale ahaan hooyo ayaa la qurux badnaatay inaan ka dhigo aan ku daafuro insha Allah. Qof kasta oo haysta fikrad ama horin ahaatee hal page waan ku soo bandhigi doonaa barnaamijkan. Commentiga ayaa noogu soo qori kartaa ama waxaad igala soo xiriiri kartaa WhatsApp-ka oo YouTube-ka intuu bilaaban ka hor aan idin soo dhigi doono. Aniga ahaan hooyo ayaan maanta idin tirinayaa anigoo hal u qaada dhigayo inta ay waxa aan tiriyayna fariinta ay wataan idin soo gudbin doono insha Allah. Inoo bilaaba. Waxaan ku bilaabayaa hooyoy hoggaanka iyo horumarka ummadeena baa tahay. Hooyoy hoggaan iyo horumarka ummadeena ayaa tahay. Qofkii kugu caasiyana hoog baa u dambeeya. Halle qofkii hooyo ku caasiyo hoog baa u dambeeya. War ma qaleesan hoog iyo dhibaato iyo adduunyo aakhir labadaba hoog baa u dambeeya. Hawl iyo hiil baan kula garab taaganahay hooyo. Hawl iyo hiil baan kula jecelnahay. Hawlna waan ku gudaynaa waan sameynaynaa hawsha noo dirto hiilna waan kula garab taaganahay. Qofku soo dhacay kara malahan. Qofkii haraadkii gaajada kugu daayana qofkii haraadka oo taqaanana waa onka oo ayada oo man iyo gaajo ku daayo oo kaga tagay hooyadiisa habeen hurda kama go'do. Dadka dambiyada gala adduunyada ku gala dambiyada foosh xun gala aakhir ayaa lagu cadaabaa balse midka waalidiinta laga galo isla adduunyadaas ayaa looga jiraa. waan sababta aan u leeyahay qofkii haraadkii gaajada kugu daaya habeen hurda kama go'do. isla habeenkaas cuqubada ka soo baxaysa. isla habeenkaas maahan isla habeenkaas waa inta uu dunida joogo ayaa ka soo baxaysa. Hooyoy haddaadan igu habaabin lahayn haddaadan igu barbaarin lahayn diinteena islaamka haddaadan igu habaabin lahayn oo aadan barin lahayn maantana hagardaamada dalkeena ka jirto iyo dhibaato dalkeena ka jirta hadda Ilaahay aynoo waasiciyo oo nabad aynooga dhigo. Qabyaaladu ay u horeyso qabiilkan waxa la leeyahay qabyaaladu ay u horeyso ayaan u halgami lahaa. Wiilka iska hadlaya soo faanta leeyahay hooyo haddaadan igu soo barbaarin lahayn diinteena islaamka maantana hagardaamada dalkeena iyo qabyaaladu ay u horeyso ayaan u halgami lahaa. Halgan waxaas xun baad u halgami lahaa. Codka labaad hadda u guda galno. Hooyoy hal heeska iyo horumarka ummadeena baa tahay. Hal hees waxaa la yidhahdaa qofka aan mar walba ku taagno oo aan sheegno ayaa tahay. Horumarkeenana waa tahay. Qofkii kugu dadaalana heer buu gaaraa. Kii kugu dadaala horumar iyo bashbash diiwaan iyo aakhir labadaba uu gaaraa. Hambalyo iyo hiigsi baan kula jecelnahay. Hambalyo waa inaan ku hambalyano hiigsi horumar himilooyin
rajo ayaan kula jecelnahay, rajo fiican inaa gaarto ayaan kula rabnaa. waxaad gaartay maaha qofkii hadal xun iyo uf kugu yiraahdaa walla kaas oo dhamaatay. qofkii waxaan doqdaa iga dhaaf uf kugu yiraahdaa naxariista qaadir ma hele. kii hadal xun kugu yiraahdaa ilaahay naxariistiisa ka fogaaday, naxariista alle uu ka fogaaday kaas. naxariista alle uu ka fogaaday. quraanka ilaahay lagu yiraahdo xataa walaa taqul uffin lakuma. quraanka sheegayo in waalidiinta aan lagu yiraahdin uff iyo wax la mid ah. anigoo ka kamaal ahaan mirahayga intaas ayaa kusoo gabagabeeyey. waxaan sugnaaba waa idinka iyo abwaanada da'da yar ee soo baxaya oo aniga ka mid ahay, aan kusoo bandhigno barnaamijka maansada maanta. waxaan ku lafaguri doono heesooyin badan oo ay qaadeen fanaaniinta Soomaaliyeed. heesaha muusiga iska dhageyso, iska nigniiki ma ahan. waxaan isku dayi doonaa inaan mirahooda la fagurno, aan fahano waxa ay inoo sheegayaan insha Allah. barnaamijka waa maansada maanta. waxaad kala socon kartaan youtube-ka Fikrad Channel maalin walba oo Jimcaha saacadu Afrikada Bari markay ku beegan tahay 2 duhurnimo insha Allah. ugu dambeyntii ku maasantahay daawashada muuqaalkan. hadda ku cusub tahay subscribe saar. waa Kamaal oo idin leh afkaaga mas'uulka noqon insha Allah.